taliyaha sare ee ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland Admiral Maxamed Xuseen Faarax Xiiran ayaa saaka soo gaadhay magaalada Saylac ee xarunta gobolka Salel. Admiral Xiiran ayaa markii uu soo gaadhay xeerada saldhigga labaad ee ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee galbeedka dalka ayaa waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidanka jiida galbeedka Soomaaliland ee ilaalada xeebaha. intaasi kadib waxa uu Admiral Xiiran halkaasi hadal kooban uga jeediyay ciidanka degan saldhigaasi. waxaan leeyahay oo inta daarmaya riyaan Saylac waxaan arkay media laga wada hadlay oo yar hadlaya meeshu waxa weeye dalku qaran buu leeyahay dawlad buu leeyahay inagu ciidankii oo nashaqeynay dhexdeena yaa lagu milmay ninkii ku milma waxa weeye igu raacay magaalo xadaariya si aan jirtay xeebad la aragto mataa qabyaalad mataa waa zaman bariyaas lagu qabyaalad haway qabyaaladu waa xaraan ciidan bay nahay haway waxa soo dumaataan sida uu hortigay ciidanka hantida qaranka hantida badda wixii soo weerarado diyaar badan moosa laakiin waxa la dhexdeenu inaga walaala koofida cad baa walaal ka dhisay bad burriski kormeerkan ayaa waxa uu taliyuhu ugu kuurgalaya sida uu sheegay kor u qaadista tayada ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Maxamed Awaale Daahir, Hoon Cable TV, magaalada Saylac.